مسؤولين شركة الليركا قافني أي waxay ku eedeeyeen wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland inay ka hor istaagtay fidinta leerka shirkadaasi waa kan maareeyaha shirkadda leerka qaafin iyo waliba cuqaaliyagu ka hadlaya arrimahani wasaaradda tamartu muddo 3 sano laga joogo ka hor ayay waxay soo saartay xayiraad ay ku xayirayso fidinta leerka magaalada Hargeysa tiraba laba jeer ay xayirtayna waraaqii ay ku xayirtay waa kuwa labadiiba ma xuma hadii wax la hagaajinayo oo ay wasaaraddu leerka wax ka qabanayso oo nidaamka ilaalinayso taa waanu taageersanahay laakiin xayiraadii baa waxay noqotay xayiraad cilmiyeysan siyaasadaysan oo cid loogu adeegayo halkan waxaan ku hayaa 330 mashruuc oo loo sii daayay shirkadda Sunpower annana waanu la anhay 2 kiiloomitir ayaan iminka muddo 7 bilood wasaaradda u horfadhiyay gabagabadina wasiirku wuxuu igu yiri halka aad adigu soo codsatay waxa maraysa shirkadda Sunpower adigu underground ku mar haddii aniga sharciga guidelines ama sharci dawli ii diidayo inaan laynkaygan tayeeyo oo laynkaygan raaco waan ogolahay laakiin haddii meeshii cid loo banaynayo leeyahay laynkaaga meesha ka saar taa ma yeelayo mana aqbalayo mana dhacayso saas cadaalad ma naan warag kii xidhnaaye la isticmaaliyay irmaanaanay hal la furfuro dhulka hal la mariyo mid kale oo imika la soo bilaabayana dusha hal la mariyo taas cadaalad ma aha wasiirka tamarta waxaan leenahay arintaasi ma aha arrin dadka dhaqda ma aha cadaaladna ma aha waxaan leenahay nimanka ku shaqada leh tamarta iyo warshada tamarta leerka cadaalad inay u samayso oo midayso ayaanu aad iyo aad uga codsanaynaa markaad leedahay shirkad shaqaynaysa leerkaaga laabo hoosta mar Sunpower in dusha ka jiid tii halka waxaad muujinaysaa waxa way ficil qabyaaladood muujinaysaa waad ka tagtay tii wasiirnimo waad ka tagtay geeska kalena agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadalkaasi sida daraaddeed shirkaddu markay doonayso in ay leer fidiso codsi bay soo qortaa wasaaradday u soo gudbisaa wasaaradda markay keento waxay wasaaradduna ka jeegaraysaa habraaci shirkaddani ma raacday mise waxba ka dhiman marka injineerada wasaaradda iyo injineerada shirkadda marka codsiga keensatay ayaa wada fadhiista way isla jeegarayaan markay isla approve gareeyaan ay wasaaraddu samaysaa ogolaasho sidaa daraaddeed shirkadaha leerka bixiya markii hore cidna waxba kuma xiri jirin oo leerka way samayn jireen way socon jireen marka waxay la qabsadeen sidii yareed dhibta yareed ee magaranayay leerka la iska sii deyn jiray ee la iska socon jiray marka waxayba u arkeen bahadimo war buugan raaco oo waa sharciye fuliya tiiba horta ku adkaatay wasaaraddu waa dhex waxay doonaysaa Soomaaliland inay dhamaan leerka wada gaarsiiyaan shirkadaha la shaqeynayno doonana iyagu laftoodu dadka aqoonta leh ee soo bartay adeegsanaya shirkaduna Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa